kooxda Real Madrid ayaa hadda u muuqata mid ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii ay ku jirtay qaybihii hore ee xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada ay ka qayb galaysay. Real ayaa hadda ku soo dhacaysa wadadii saxda ahayd kadib qaab ciyaareedkii ay soo bandhigtay kulankii guusha 4 Everton ay ka gaareen kooxda Eibar kulan ka tirsanaa horyaalka Spain. iyadoo aan wada ognahay in sidoo kale Los Blancos ay guul raaxo leh ka gaartay kooxda reer Turkiga ee Galatasaray kadib markii Zidane iyo xulfadiisa ay 6-0 kaga adkaadeen kooxda Turkiga ah kulan ka tirsanaa tartanka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. haddaba wargeyska Marca ee ka soo baxa magaalada Madrid ee caasimada dalka Spain ayaa soo bandhigay 5 arrimood oo fure u ah qaab ciyaareedka haatan ay soo bandhigayso Los Blancos. qodobka koowaad, Real oo ku jirta waqti fiican iyo ciyaartoyda kooxda oo dhammaantood feejignaan ka muujinaya koox walba ay ka hortagayaan. tan iyo guul daradii Los Blancos ka soo gaartay kooxda Real Mallorca, xidigaha Los Blancos ayaa tan iyo waqtigaas bilaabay inay ka feejignaadaan koox walba oo ay la ciyaarayaan. Real ayaana haatan soo bandhigaysa qaab ciyaareedkii hore ka duwan, waxayna xitaa dhalinayaan goolal badan. Los Blancos ayaana hadda ku jirta booska labaad ee kala sarreynta horyaalka Spain, inkastoo uu kulan baaqi u yahay kooxda ka dhisan magaalada Madrid, waxayna la ciyaari doonaan kooxda hogaaminaysa horyaalka ee Barcelona gudaha bisha soo aadan ee December. feejignaanta ay sameynayaan xidigaha kooxda Real Madrid ayaa ah mid kamid ah arrimaha ugu waaweyn ee Real Madrid ka dhigtay inay qaab ciyaareed fiican soo bandhigto waqtigan. qodobka labaad, siyaasadda Zinedine Zidane. isku beddelka xidigaha Los Blancos ku sugan waqtigan ee Zinedine Zidane ayaa ah mid kamid ah arrimaha ugu waaweyn ee Real Madrid ka dhigtay koox holac ah kulamadii ugu dambeeyay ee ay ciyaartay. inkastoo Zidane kulankii ugu dambeeyay ee Eibar su'aal laga keenay kaadka uu galiyay da'yarka reer Brazil ee Rodrigo, kaas oo bandhig qurux badan sameeyay kulankii Champions League Los Blancos ay la ciyaartay kooxda Galatasaray isagoo 3 ka dhaliyay kooxda reer Turki. laakiin Zidane ayaa ku soo bilaabay kulankii Eibar Lucas Vazquez, kaas oo qaab ciyaareed fiican ugu abaalguday tababarihiisa Zidane. qodobka saddexaad, Eden Hazard oo ku soo laabtay kii la yaqaanay. xirfad cajiib ah iyo khatar muuqata ayuu la yimid Hazard, wuxuuna soo bandhigayaa qaab ciyaareedkii loogu bartay markii uu ku sugnaa Chelsea. Hazard wuxuu hadda si fiican ula falgalayaa saaxiibadiisa garoonka ay iskula jiraan, wuxuuna mar walba uu kubadda taabto halis cad uu ku yahay kooxda ka soo horjeeda. inkastoo goolal uusan dhalinayn, haddana waa halis muuqata. kulankii ugu dambeeyay ee Eibar wuxuu ku lug lahaa 2 gool oo kamid ah 4 gool ee Real Madrid ay kaga adkaatay kooxda Eibar, waxaana kamid ah rigoore isaga lagu galay intii ay ciyaartu socotay. soo laabashada Hazard waxay qayb ka tahay bandhiga qurxoon ee Real ay soo bandhigayso waqtigan. qodobka afaraad, Thibaut Courtois oo derbi aan kubad la dhaafin karin noqday. 5 ciyaarood iyo 553 daqiiqo ayaan wax gool ah laga dhalinin. goolhayaha reer Belgium ayaa xitaa dhaafay rikoor uu horay u dhigay Keylor Navas. isbeddelka uu sameeyay Courtois waxay qayb ka tahay sababaha Real Madrid ay u soo bandhigayso qaab ciyaareedka quruxda badan waqtigan. qodobka shanaad, Real Madrid oo markaan heshay beddelka xidigeeda qadka dhexe ka ciyaara ninka lagu magacaabo Luka Modric. Zinedine Zidane waqtigan ma haysto xidiga badan oo qadka dhexe ka ciyaara, balse markaan wuxuu helay xidig tayo sare leh, waana ninka lagu magacaabo Federico Valverde, kaas oo buuxiyay booska Modric kulankii Eibar. waxa uu muujiyay in sidoo kale uu buuxin karo booska Toni Kroos oo kulankaas la nasiyay. Valverde ayaa Zidane tusay inuu yahay xidig la aamini karo oo mudan in lagu soo bilaabo qadka dhexe ee Los Blancos kulan walba oo ay ciyaarayso kooxda magaalada Madrid ka dhisan. 5 arrimood waa 5 Real Madrid ka dhigtay inay noqoto koox laga cabsado kulamadii ugu dambeeyay.